وحليه سؤاشان شيخ محمد إدريس جزاك الله خير هكا جواب يعني شيخ ستوس وقصو هكاتي وحليه شيخ وحان آذا أروسيدا أروسكا كلية وحانو آذا إنان قبلها كسو فيرسدو محايا لو حليه وهابينك كلية قبلها صومالية توسك الله أركي كارو دم بما إقرها عيا مقصدك إساقو أسام محوية الحمد لله هراء شاقي وحانا هدي قور أما دوما لغشا كيو وقسليان على كل حال دلن يراد قور بيوباهيه هنا قور سدان نكان دلن يراد وحليه هاي أراسيضا وحانو تغا إنان قبلها عن فيرصد من دا كبو حسدو وهابينك قبلها صومالي لا عاركي كروب قدري ماشان وحيا لا دور مسألة كواد وحويه أراسيضا oo u tagayo gabdhaha inuu daawado halka waxa ka muuqanaysa aroos inuu yahay rag iyo dumarku isku dhaxdaysan yihiin waana mas'ala aan banaanayn ragii iyo dumarkii inay meel isugu yimaadaan arooska oo ay isku dhex jiraan waa mas'ala muharrama waa mas'alada koowaad mas'alada labaad waxa weeye qasadka ninkan uu tagayo meesha oo qasad xun ah oo ah inuu indhaha meelaha ku soo firfiriyo iyaduna waa dembi kale masalada saddexaad oo meesha ku jirta waxa weeye dadka aroosyadan iyaguna sameynaya oo iyaguna dembiga qaybtooda qaadanaya maxaa yeelay waxay u sahleen raggii iyo dumarkii inay meel isugu yimaadaan oo ikhtilaad iyo isdhexgal halkaa ka dhaco fawaaxish ka waaweynina inay ka dhacdo ay dhici karto iyaguna dembigooda qayb bay ka qaateen oo dembi bay sameeyeen oo mujtamacii waxay qayb kaga qaateen fawaaxishtii inay ku faafiyaan oo munkarkii ay sahlaan oo gabdhihii iyo wiilashii dhalinyaradii raggii iyo dumarkii ay u fududayaan siday faaxishadii aynu ka sheekeynaynay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waddooyinkeeda u xarimay waddo ka mida inay u fududayaan meeshii marka arooskii la rabay oo sunnada ahaa oo nikaaxa ahaa waxay u beddeleen oo ku dareen dembi iyo ismi iyo ishaacatu alfaaxisha waalmunkaraat inay munkar ku faafiyaan waxa kaleeto iyaduna mas'alo afraad ah dumarka iyana ziinadoodii bannaanka soo dhigaya guryahoodii ka imanaya ee meel nimankii ay joogaan ay ka daawanayaan oo aroosyaa iyaguna la soo shirtegaya iyaga iyo awliyadooda iyo dadka mas-uulka ka ahna iyaguna dembi bay qaadeen masalada intaasoo nooc iyo intaasoo qaybood baa horta ka qayb qaadanaysa oo munkaraadka hadday jirto haddana heeso iyo sawiro iyo video la duubo iyo waxyaalaha kaleeto oo ama la cunayo ama la cabayo oo iyana ka siyaadsan hadday jirto muxaramaada iyana waa dhulumaatun bacduha fawqa bacdin waa mugdiyaal kala sarsareeya oo isdul saaran way intaasoo mugdi ayaa marka meesha ku jirta intaasna qaybtaadaad ka qaadan marka dadka muslimiinta ah ama ha noqdaan dadka aroosyada dhiganaya ama ha noqdaan gabdhaha muslimaadka ah ee tegaya aroosyada mukhtaladka ah oo saasoo kale ah ama ha noqdaan ragga iyaga mas-uulka ka ah sida nimankooda iyo aabbayaashooda iyo walaalahood ama ha noqdaan dhallinyarada iyo ragga iyagu aroosyada saasoo kale tegaya dhammaan dadkaasoo dhan waxa weeye tacaawun cala alithmi waalcudwaan bay ku bahoobeen marka waa in ilaahay walaalayaal laga boqo aroosku waa sunno in la dhigto in la farxo laakiin waa in la marsiiyaa waddadiisii saxda ahayd ninka dhallinyarada ahna waxaan leenahay waxa ku bannaan inaad guursato si meela fiirfiirinta xaaraanta ah aada uga
daawowdo daawo kalena ma laha ya macshara shabaab man istataaca minkum alba'ata falyatasawaj waxaana kaga hadalnay mowduucii muxaadaradii zinada ee u noqo in sha allahu tacaala daawadeeda daawadaaduna taas weeye guur weeye iyo ka fogaansho meelahaas ilaahay waxaan kaaga baryaynaa adiga iyo dhallinyarada muslimkaaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala faaxishada idinka xifdiyo furuujtiinana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhowro gabdhaha muslimaadka iyo qoysaska muslimkaana ilaahay inuu fawaaxishta ka ilaaliyo wallahu aclam jasaakum allahu khayran waqtiga wuu dhammaaday guddiga su-aalaha soo kala marhaya masaajidka dacwadiisa ka tirsan waxay yidhaahdeen soo afjar 3 su-aalood baa lagu soo khatimahayaa ruuxii nasiibkiisa ay ugu soo hagaagto su-aashiisa waxaan kaloon ka cudur daaranaynaa su-aalaha faraha badan in laga wada jawaabin maadaama in badan lasoo ballan qaadahayo su-aalihii dib loo dhigay in laga wada jawaabahayo laakiin waxaan ilaahay ka codsanaynaa mar kale inuu culimmada intuu sidan oo kale u fadhiisiiyo wixii dhimanaa ay ka jawaabaan 2 su-aalood waxaa iska leh sheekh maxamuud shibli midna waxaa iska leh in sha allahu tacaala sheekh maxamed idriis su-aasha 2 su-aalood ee sheekh maxaan ku dhahdaa sheekh maxamed shibli wuxuu leeyahay waxaan ahay nin dhallinyaro oo carab ah in badan baan shaqo raadinhayay waan rafaaday 2 waalid oo aad u gaboobayna waan leeyahay waxba maxaan ku idhahdaa waan ku soo bixi waayey waadan baan shaqo helay in cabaara markaan shaqaynhayay baa nimankan u shaqaynhayaa waxay ii keeneen waraaqo la leeyahay turjun oo mukhaabaraadka iyo luuqadda af carabiga ku turjun luuqadan kale ku turjun yacni waxaan waraaqahaasuna yacni waa mukhaabaraad baa loo turjumahayaa oo wax gaalada dan ugu jirta weeye xoolaha aan ku qaato shaqada iyada ama xalaal baa mise waa xaaraan taas waa su-aal su-aasha kale wuxuu leeyahay sheekh waxaan ka kari la'ahay xaaskayga wax meelaha khuraafaadka iyo mingiska iyo waxaa lagu dhigo iyo meelaha riwaayadaha iyo laga heesheeso oo habeen badh laga yimaado weliba rag wuxuu leeyahay waaweyn baa mararka qaarkood u soo sheegay in riwaayad caawa la dhigahayo xaaska noocaas oo kale ah maxaan ku sameeyaa wajazaaka allahu khayran bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalam ala rasuulillah amaa bacd su-aasha hore nuxurkeedu waxaa weeye niman ama mukhaabaraad leh ama sirdoona baa waraaqa noo turjin yidhi muslimiinta dhibaya saasaan u fahmay waraaqda nuxurkeedu inay tahay dadku ama sirdoon ha noqdaan ama hay-ada ha noqdaan haddii waxa ay samaynayaan ee waraaqahan loo samaynayaay ay dembi iyo wax muslimiinta dhibaya tahay sida saa'ilku uu sheegay ama wax fuxshi iyo dembi iyo muxaramaada loo turjumayaa ama wax muslimiin dhibayaa loo turjumayaa tarjamadu waa nooc tacaawunka iyo isgarabsiga ama howllaqabad iyo howl fududaynta ka mida wey wax kasta oo dembi ah iyo wax kasta oo qof muslima ama qof berii'a dhibaya qofku ama ha noqoto qoraal ama ha noqoto daabacaad ama ha noqoto tarjamad ama ha noqoto koobiyeyn ama ha noqoto geynta meesha laga rabo wax kasta oo ama bidaatihi dembi u ah ama qof muslima dhibaya si xaq darro ah ama qof kaleoo berii ah dulmi uu noqonaya qofka muslimka inuu qayb ka noqdo oo uu lu ku darsadaay ma bannaana cumuumkii naska aayadda qur-aankaana ku filan walaa tacaawanuu cala alihmi waalcudwaan wax isagu dembi ah iyo wax xadgudub ah oo xaqdarraa dad lagu xadgudbayo garab ha isugu noqonina ha isugu kaalmaysanina nusuusta sharcigu tusaalayaal bay ina siisay dembi qoraalkii wax laga qoray inuu dembigii yahay oo markii ribada laga hadlayay 4 baa la lacnaday 4ta la lacnaday waxay ahaayeen waxaa ka mid ahaa wakaatibaha ninkii wax kala qoree kala xisaabiya ani riba ma bixinayo ma qaadanayo waan u kala qorayaa lacagna waa ku qaadanayaa dembigii baad qayb ka tahay wey tacaawunka qaybihiisa kalena khamrigaa 10 loo lacnaday waxaa la lacnaday kii sameeyey kii gaariga ku qaaday kii xamaaliga gaariga saaray
kii gaariga kaxeeyey kii ka dejiyey gaariga lagu wada laftiisa sababta intaa loo wada lacnaday waxaa weeye dembiga gelbintiisa iyo gurigeyntiisa iyo kamira dharintiisa buu ninba kaalin ka qaatay saa darteed dunuubta iyo macaasida iyo adiyada iyo cudwaanka iyo dulmiga iyo dhibka dadka abriyada ee muslim iyo aan muslim ahayn intaba ma bannaana qayb inaad ka noqoto waraaquhuna intaa unbay soo gelayaan su-aasha qaybta labaad islaantaydii baan riwaayadaha ka kari lahay sooma insha qoran islaantaydii baan riwaayadaha ka kari laahay iyo meelaha khuraafaadka ah de meelaha khuraafaadka ama durbaanada lagu tumo ama lagu xadreeyo ama munaasabadaha mawliidkiiya lagu dhigaan u qaatay khuraafaadka tan kalena riwaayadaha iyo meelaha heesaha iyo filimaanta lagu jilo baan iyadana u qaatay labadaasi waa dunuub iyo macaasi tegitaankeedu midna waa bidac midna waa muxaramaad qofka muslimka ee dumarka inay tagtaay ma bannaana ninkeeda qabee mas-uulka ka ahna inuu u oggolaado ma bannaana hadduu oggolaadoo raalli ka noqdo waa qaybtii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam riwaayadahaas iyo ku magacaabay ninka dayuuska la yidhahdo ama soomaalidu dayuuska ay u taqaano wey alladii yuqiru alkhabatha fii ahlihi dadkiisoo dunuub iyo macaasida samaynaya iyo dhaqan xumadaas u oggolaanaya u fasaxaya waa inuu ninku reerkiisa ka ilaaliyaa waayo rabbi baa amray quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaas walxijaara ka ilaalintii naartayna ka mid tahay inaad ka celisa meelahaas oo kaleeto ka celintii marna waanay leedahay iyo waxusheeg iyo ilaahay lagu la xasuusiyo laakiin ha lagu wo qofka dumarka xaaskaagaa markaad ilaahay xasuusinayso horta adiga ilaahay ka cabsi lagugu yaqaano wey laakiin aduu inaad qasato markaad rabto iyadoo markay qasan rabtana na ilaahay ka baqaa tiraahdaay waxaa weeye waa kasad bursi waxbaad ka bursanaysaa baa loo qaadanayaa horta adigu ilaahay ka baq ilaahay cabsidiisana ku wada jooga gabadhiina ku waani dadna u kaasho in ilaahay ka baqdo waxana ay iska dayso haddii aad ka kari weydo oo dhinacaa kaba quusato haddii aad lafahaaga iyo ilmahaaga inay idinba saamayso oo laftiinna marka dambe idinku shubto aad ka baqdo dee bannaanka ka maro markay riwaayadda aaddo dhex seexa dheh meeshaa riwaayadda u tagtay ha ka soo galbane furaashkaagana dhiga ku dheh gurigana dib ugu soo galban maysid kala dooransii gurigeeda iyo riwaayadda iyo meesha damdamta loo tegayo laakiin ninku ahalkiisa khabadka inuu ku sugo haddii uu ka baqayay isagu inay jiitaanma marka kaleo tambatiisa iyo ilmaha u baqayana uu ku sii daaya ma aha laakiin marka hore talada iyo waanada iyo tolka iyo qaraabada kaashigooda bal inuu ka soo quusto weeye culimmadan intaa u deeyay waxay ku darayaan wallahu aclam jazaaka allah khayran